السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبو روان وجنال كيني روان جنال قصة دين وضو waxay daaran tahay saaxiibka xun iyo saaxiibka wanaagsan farqiga u dhaxeeyo saaxiibka wanaagsan mar walbo waxaa lagala kulmayaa wax wanaagsan oo tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay saaxiibka wanaagsan inuu la mid yahay midka cadarka iibinaya oo laga yaabo in meeshiisa dukaankiisa markaa tagto udgoon ah kasoo faa'iido amaba cadar uu kuu soo mariyo amaba uu kuu soo hadiyeedayo cadar saaxiibka xunna waxaa lagu tilmaamay mid khasaaro ka dhasho mar walba oo wuxuu ku tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam midka birta tuma naafiq alkiir midka dabka shida ee dabka afuufa ee birta tuma ninkaas waxaa laga yaabaa khasaara ugu yaroo kaa soo gaarayo in adiga is dhibsato markaa meeshiis kasoo tagto urta kasoo baxayso qiiqii iyo wixii ku dhex jirtay jirkaaga iyo dharkaaga kasoo uraayo ama waxaa laga yaabaa inuu dharkaba kaa gubo isagoo dab shidaya amaba dabka qiiqiisa iyo holaci dabka dharka kaa gubo qisadeena marka waxaa ku bilaabanaysaa wiil dhalinyaro ah oo 16 jir ah oo lagu magacaabo islaam ayaa wuxuu ahaa nin dabara nolosha qoyskiisa oo ka koobnaa isaga iyo hooyadiis iyo aabihiis iyo gabar isaga la dhalatay islaam wuxuu ku shaqayn jiray mooto bajaaj si Soomaali u taqaano wadamada kale ee Carabta iyo Afrikaankana tuk looga yaqaanaa waxaa dhacay subaxyada ka mid ah nin beeraley ah ee deganaa xaafadda ama magaalada ama tuulada islaam reerkiisu deganaayeen in uu ku arkay beertiisa dhexdeeda wiil dhalinyaro ah oo mayd ah kadib wuxuu u yeeray dadkii beeraleyda ahaa oo meesha markii la isugu yimid waxaa la wacay askartii markii la wacay waxay askartu weydiiyeen isla markii saldhigga ciidanka in la keeno muwaasafaadka 24 saacadood ugu dambeeyay dadkii la la'aa ee report laga soo dhigay saldhigga ciidanka si loo fiiriyo in tilmaamaha wiilkan uu wato ay ka mid yihiin tilmaamo qof reerkiisu ay report sameeyeen in ay la yihiin balse muwaasafaadkii iyo tilmaamihii la keenay oo dhan ma ahayn tilmaamo markaas u dhow wiilka yar meesha jooga tuulooyinka oo isu dhawaayeen hadalkii soo socday wuxuu gaaray xaafadii ama deegaanka uu deganaa islaam oo aabihiis uu la yaabanaa in uu xalay wiilkii soo hooyan waayo waalidka qaar waxaa laga yaabaa in maadaama wiilkan nin markaas weyn uu reerka maamulo yahay in uu shaqo aado oo habeenkii reerkoo jiifo uu iska yimaado subax markii lasoo kacana waxaa macquul ah in uu inta baxo reerkii oo jiifo oo haddana aado dad kale qaado ama shaqo usoo baxdo reerkii oo jiifo marka wax caadiya la ahayd aabihii balse markii loo sheegay tilmaamaha wiilkan yar ee laga helay beerta dhexdeeda waxa isla markii dhaqaaqay qalbigiisa oo wuxuu dareemay in calaamadaha muwaasafaadka la tilmaamay ay yihiin mid quseeya wiilkiisa wuxuu weydiiyey wiilka meesha laga helay halka la geeyey isla markii waxaa loo tilmaamay dhakhtarkii ama isbitaalkii la geeyey wiilkiisa wuu soo baxay odaygii markuu yimid isbitaalkii waa arrin aad u muruga badan oo aad u naxdin badan oday iyo xaaskiisa iyo gabadhiisa oo wiilkii ayaga ay dhaleen ee ahaa midka keliya ay reerkan noloshooda ama umuurahooda dabarayay in ay u yimaadaan isaga oo dhintay waxaa marka isla markii su'aalo weydiiyey odayga wiilkaaga wax problem ama qof cadow ku ah ma jiraa wuxuu yidhi may wiilkayga wuxuu ahaa nin dadkoo dhan u qosla oo nin wanaagsan ah ahlu salaad ah dariskoo dhanna jecel yihiin asxaabtiisana jecel yihiin balse waxaan la yaabuu yidhi shalay subax markii uu guriga ka baxay shaqada tagayay gacanteeduu qabtay uu dhunkaday waxyaabo aad basiid ah oo fudud bay ahaayeen balse uusan samayn jirin wiilkayga waxaa marka wiilkayga gacanteeda dhunkaday aan u duceeyey in ilaahay irsaaqad fiican soo siiyo kadib qalbigayga soo gashay ama aan is iri wiilkaaga ma ku sagootinayaa ama waa laxdatil wadaac miyaa
yani in uu qofkan nolosha faaruq rabo kale. ilaa waqtigaas qalbigayga dareenka uu ku jiray ilaa maanta aan ka arko. aabihii wax jawaab cad uu siin waayay askarta, laakiin sirdoonka askarta ama saldhigga booliska sirdoonka jooga waxay leeyihiin indho fara badan oo gurubba waxay ku shaqeeyaan ama takhasuskooda yahay sida loo soo heli lahaa xaqaaqa. waxay bilaabeen inay wareystaan dadka tuuladan deganaa ee wiilkan yaqaanay tugtugiisa markuu baxayay. waxaa loo tilmaamay wiil ka mid ah wiilal 3 ah oo saaxiibadiis ah in uu mootada la saarnaa. waxaa dhacday in dad kalena ay sheegeen inay arkeen wiilkan tugtuga isagoo wado oo 3 dhalinyaro ahna tugtuga ay la saaran yihiin. durbadiiba waxaa bilowday in la isweydiiyo wiilashii wiilkan saaxiibka la ahaa oo joogay magaalada ama tuulada joogay markii la helayay meydka wiilka, balse la waayay saacado kadib. nimanka sirdoonka iyo dadaaladooda waxay isla markii u dhaqaaqeen tuulo ku dhow tuulada uu deganaa wiilka oo lagu sheegay in ay wiilashan joogaan. markii lasoo qabtay ee saldhigga la keenayna waxaa mufaaja'a ahayd in wiilasha mid ka mid ah uu yiri haa inagaa sameynay. waxaan u sameynana waxay ahayd damac oo aan damacnay tugtuga wiilka uu watay. waxaana sababay arrintaas nin oday ah oo aan wanaagsanayn oo dadka xaaraanta cuna ah ama waxyaabaha lasoo xado ayaa wuxuu inoo sawiray in uu lacagna siin doono haddii tugtugan ama bajaajkan aan u keenno. bajaajkan uu ku shaqeyn doono bil walbana una siin doono lacag muqaabil ah maadaama bajaajki isaga uu ku shaqeeyo lacag horena una siiyey oo uu noqon doono bajaaj aan shirka ku nahay. isla markii waxaa la weydiiyey maadaama wiilkii la helay bajaajkiina la waayay in ay bajaajkii keenaan. waxaa lasoo qabtay ninkii odayga ahaa ee tuuga ahaa ee bajaajka wiilashan dhalinyarada ah usoo diray. bajaajkiina waa lasoo qabtay. wiilashii isla markii waxay bilaabeen in ay sheekadii kasii sheekeeyaan. waxay dhaheen waxaa hadlay mid ka mid wiilasha wuxuu yiri aniga ayaa waxaan soo kaxeeyey saaxiibkay isaga oo guriga subaxi ka soo baxay. waxaan ku erinayahow tuulada nagu dhegan beer ku taalaan u baahanahay, waxaana ku siinayaa lacag 100 pound ah oo lacagta dalkan markaa. wiilkii aad buu u farxuu yiri oo wuxuu yiri new aad baa iga farxisay. waxaan maalinkii oo dhan shaqeyn lahaa in aan hal safar oo adiga ku qaado aan ku helaayo. wuu soo dhaweeyey isla markaa waan israacnay. waxaan la sii balamay asxaabteeda oo mid walba meel nagu sii sugayay oon telefoon usii diray. markaan baxnay meel dhexe markaan marayna waxaana soo raacay nin saaxiibkii ah. muddo markaan soconina waxaana soo raacay ninkii 3aad ee saaxiibkood ahaa oo markaa fariistay kursiga hore ee bajaajka. ninka wado inta badan kursigiisa wuu weyn yahay, qof baa la fariisan kara. dadka asxaabta markay yihiin oo isla fariistaan meesha. wuxuu yiri isla markii waxaa bilowday in aniga aan la soo baxay midi yar oo midiyaha la furo ah oon ku bilaabay saaxiibkii in aan ku dhaawaco mididii. nimanka saaxiibaday gadaal fadhiyeen midiye yar ay la soo baxeen waxay bilaabeen iyagana inay dhaawacaan. wuxuu yiri ninka saaxiibkii ah wuxuuna leeyahay nimayow see wax u jiraan. wuu la yaaban yahay in anaga dadka acaz asxaabtiisa ah in aan dhibta u geysanayno. wixii kaftan ma aha oo way gudbeen oo ninka dhiiga ka socdo oo uu dhaawacan yahay xanuun oo xanuunsanayo. laakiin wuxuu yiri subxaan allah steerinkii mootada hal marna kama foqin oo wuxuu dareemay in meesha ay jirto dhac la dhacayo mootadiisa oo wuxuu dhintay isagoo mootada ku dhegan.
waxaan sameynuu yiri inaan markii uu dhiiggiisii cabaar socday mootada istaajiyey aan mootada ka dejinay aan mootada inta ka tuurnay isagoon weli dhimanin oo laakiin dhiig baxay aan mootada inta ka xeesanay weliba heeso sii shidanay anagoo u socono tuuladii ninkii tuuga ahaa uu joogay oo noo ballan qaaday lacagta. waxay noqotay arrin aad iyo aad cajiib u ah askarta xaggooda, niman dhalinyaro ah oo saaxiibkooda dhibta noocaa u geystay. waxay dowladda ama saldhigga u amray in loo kaxeeyo meeshay ku dileen wiilkii, ay sameeyaan matalaad qaabka ay u dileen, iyadoo ahayd qaab aad u xanuun badan saaxiibkooda in ay dileen. afartoodii, saddexda wiil iyo ninkii tuuga ahaa waxaa la geeyey oo loo bandhigay maxkamaddii, balse waxaa kaloo reerka aad u xanuujiyey in ilmahan wiilkooda saaxiibka la ah ay yihiin kuwo ku da' ah amaba teenager ah oo da' yar. waxaa la dhahaa axdaath wadamada carabta, ama qaasir waxay dhahaan. marka ma lagu xukminayo dil toogasho ama looma qisaasayo, balse waxaa laga yaabaa in dhowr sano la xiro kadibna ay soo baxaan. waxaana laga yaabaa dhowrkaas sano kadib markay soo baxaan in ay geystaan dhibkaas la mid ah, maadaama ay soo tijaabiyeen tajribada dhibtaasna ay soo mareen. waxaa darsigan aan ka faa'iideynaa waxay tahay saaxiibkaaga in aad ka garato qofka asxaabtaada inaad ka garato qofka saaxiibka khaaska ku ah ama daacadda ah ama wax ka faa'iidaysay wanaagsan. aad ka fogaato asxaabta xunxun, amaba laga yaabo inay ku damcaan amaba dhib kuu geystaan, ama laga yaabo inay dhib ay geysteen adiga dusha lagaa saaro berito. waa Abu Rawaan oo idin leh janaalka subscribe ha idin ahaado si aad ula heshaan qisooyin noocaas oo kale ah. like-tana naga hilmaamina. aadna u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.